بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم walaalahay meel kasta joogtaan. Kusoo dhawaada channelkiina waa channelkii walaashiin Shukri Sow. Maanta iyo fiidiyoo cusub. Maanta walaashiin waxay idin wadaa scrub oo cajiib ah maasha Allah. Wajigada aad ka heli kartid oo insha Allah ku anfici doona. Laashay walaalkeed fiidiyooga kusoo gaara insha Allah. Like saar, subscribe saar, share gareeya. adigoo mahadsan walaalihii hore idin joogan waxaan leeyahay noola joogo waxaan leeyahay jasaakumullah khayr. walaalaha cusubna waa soo dhaweynayaa kulligiin beedkiina waaye gabartiina waaye martimatihiin maasha Allah. maanta waxaan soo qaatay kafee maasha Allah tabaarakallah. dad skinka raba maanta in la qaado maqaarka oo maaragtay qobkii maarkina oo basharada hadday dry ahayd amba maaragtay wadarka isbedeshay maaragtay kasoo baxay maasha Allah. haddaa rabtid inuu smooth ku noqdo maasha Allah tabaarakallah waxaa u baahan tahay qaxwo oo sinjibiil iyo maaragtay spice iyo waxba aan ku jirin insha Allah. qaxwo oo maaragtay oo asli ah oo bunka ah iyo maaragtay haduu ilaahay yiraahdo iyo sokor. sokorta haysata sokorta brownka sokorta cad insha Allah u baahan tahay. waxaan soo qaatay baaquligaas waxaan kusoo shubay qiyaastan aday kugu xiran tahay. lugaha waxaan ku dhahay gacnaha maasha Allah waxaan ku dhahay maqaarka dhintoo dhan oo korkuu kaa qaadaya gacantaada maasha Allah smooth ay kuu noqonay haduu ilaahay yiraahdo. walaalahay waxaan kaleeto meesha ku haystaa baaquligaasaan soo qaatay. waxaan kusoo ridayaa qumbahaas coconutkaas aan kusoo ridayaa insha Allah ilaa hal macalka iyo nus camal oo qumbo oo asli ah oo organic ah waaye coconutka maasha Allah tabaarakallah. wax yaraa microwave-ka ku kululeynayaa haduu ilaahay yiraahdo because hadda waqtiga qabow marka la gaaro wuu adkaadaa. marka maasha Allah tabaarakallah hadda waa ku shubay haduu ilaahay yiraahdo intaasaan isku laaqaya maasha Allah tabaarakallah. waxaan ku dhahay maqaarkaadana smooth uu noqonaa haduu ilaahay yiraahdo maadaama uu scrub yahay haduu ilaahay yiraahdo. waxaa fiican maaragtay inaad wajiga ma ku fiicno kan in la marsado because qashin camal waa yacni qashin waxaan ka wadaa kuskuus ku jiro oo maaragtay maahan naacim jiddan maaha. soo ani marka waxaan dhihilahaa gacnaha iyo lugaha bas korka kaleeto intaan wajiga ka ahayn waa ku samayn kartaa scrubkan insha Allah haduu ilaahay yiraahdo. waxaan ku dhahay 10 daqiiqo kadibna waa iska dhaqaysaa maasha Allah tabaarakallah. dad skinka dhan uu kaa qaadaya shiny uu kaa dhigaya maasha Allah tabaarakallah. wax 100% aan kiimika ku jirin oo dabiici ah oo gurigaada ka heli kartid waaye haduu ilaahay yiraahdo. walaalahay waana frinjeerkan waa gashan kartaa laakiin waxa ku fiican inta adiga markaas ay isticmaalayso lugaha iyo gacnaha amba korka inaad qasatid kadibna maaragtay aad isticmaashid oo the same time maaragtay aad eber ka dhigtid oo maaragtay waxba aadna kiib garaysanin insha Allah. inkastoo wax biyo iyo waxaas uu ku jirin oo maaragtay aad haysan kartid 2 days 3 days insha Allah frinjeerkan aad gashan kartid. marka waa kaas walaalahay war badan wax ma taray youtube-ka waxaan ku dhahay like iyo saar insha Allah iyo share gareeya waa kaas maasha Allah. maasha Allah saas naacim inuu noqdaa lahay bibiya haduu kaa noqdo scrub ma noqonaayo yacni wuu kaa daadanayo. marka waxaa fiican inuu kuuskaas uu leeyahay yarkaa oo insha Allah gacantaada aad ku rogtid maasha Allah waa ka heli doontaa haduu ilaahay yiraahdo. waxaan cadeynaa idima lihi oo kiimika meesha kuma hayay laakiin waa wax dabiici ah. hooyinkeenana weligoodna wax dabiici marsan jireen iyo waxaan xasuustaa my mom maasha Allah tabaarakallah. ilaahay waxaan ku dhahay hooyooyinkeena oo dhan hana wada xafido inay maaragtay waxyaabaha dabiiciga oo jikadaas laga helay ay marsan jirtay. marka maasha Allah tabaarakallah haddana adduunku horumaray waxyaabo cusub baa soo baxeen waa kaas walaashiina waxaan ku dhahay waxay taqaan idinka hagramaysa adigana faraha iyo suulkayga hagranin insha Allah. fiidiyoogana share gareeya sidaan iyo markale aan ku kulmayno fiidiyo cusub. walaalahay waxaan kaga tagayaa fi amaanillah. assalaamu calaykum.